wafdidan balaaran uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ay ku yeelanayeen xubno wasiiro oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxaa maanta si balaaran lagu soo dhaweeyay magaalada Caynaba waxaana ka hor intii aanay wafdidu soo gaarin magaalada Caynaba kaga hortagay deegaanka Kirir ee xadka gobolkani xubno wasiiro oo ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland Ali Siciid Reegel wasiir dowlaha waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha gobolka Saraar maayirka degmada Caynaba iyo dadweynaha u tira badan waxaana wafdiga madaxweynuhu sidoo kale soo mareen degmada cusub ee Wadaamago halkaas oo si balaaran loogu soo dhaweeyay waxaana ugu dambeyntii madaxweynuhu socod luga ku soo maray jidka dheer ee laamiga ah ee magaalada Caynaba iyadoo halkaas dhoobnaayeen dadweynaha u tira badan oo ruuxaya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caleemo qoyan ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo wafdigiisa waxaa loo soo galbiyay hoteelka weyn ee Caynaba waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Saraar Ali Maxamed Faarax waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wafdiga hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Saraar waxaan leenahay adiga wafdigaagaba ku soo dhawaada qalbi furan iyo quluub wanaagsan oo saafiya ayaan madaxweynaha ku soo dhaweynaa adiga muxuu ahaa golaha wasiirada wafdiga kale kula socda waxa kale oo aanu ka mahad celinaynaa waxqabadka ballaaran ee qarankan u sameysay weliba gaar ahaan anagu si gaar ah waxaanu uga mahad celinaynaa dalabkayagii anigiyo muxuu ahaa shacabka reer Saraareedba aad jawaabta wanaagsan siisay iyo wixii aanu ka dalbanay oo hadda wax socda intaas kadib waxaa socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ku soo gaaray caasimadda gobolka Saraar ee Caynaba ka warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Saxardiid Cadaani anoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waxaan halkan mahadnaq aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u ballaaran aan u diraynaa shacab weynihii ilaa markaanu Hargeysa ka soo baxnay hadday madaxda gobolka Sool tahay iyo hadday tahay madaxda degmooyinka Dacarburuq Abdaal iyo Berbereba sida qiimaha iyo qaadaha lahaa u soo dhaweysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigii ballaadhnaa ee maxaan ku dhahdaa uu horkacayay waxaanu kale sida si mahadle aan ugu mahadnaqaynaa dadkii faraha badnaa ee nagaga hor yimi Berbera Sheekh iyo madaxdii gobolka Togdheer iyo degmada Burco halka Krasharka ilaa iyo Qoyta iyaguna nagaga hor yimi ilaa aanu Burco soo galaynay maxaan ku dhahdaa iyo gobolka Saraarna nala socday iyagana mahad ballaaran ayaan u jeedinaa waxaan kaloo mid aan mahadnaqan la ilaawi karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan u jeedinayaa dadweynaha sharafta badan ee gobolka Saraar gaar ahaan qoliyada Kirirka naga hor yimi ee madaxda gobolka Saraar iyo degmada cusub ee ballaaran ee qiimaha leh taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland kule Wadaamago iyo waxaan ku dhahdaa degmada Caynaba waa ka waraysan bariyaan waxa ka socday nabadayn qaran oo hawlaha maanta aanu safarkayga inuu ka yahay ay ku jirto wasiirkeena barbar taagan Maxamed Aadan iyo wasiir Ali Siciid Reegel iyo deegaankooda ay tahay runtiina nabadda ay aad iyo aad ka waraysan khaatumo ay si qiimo iyo qaayale qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay maxaan ku dhahdaa ay hawsha uga dhameeyeen safarkayga waanu sii soconaynaa Salabaan Cilmi Siciid Salabaan Kiiko wararka telefishinka caalamiga Star Caynaba